magalada garoowe caasimada maamulka Puntland waxaa maanta gaari wafdi ka socda dowladda Jabuuti kaas oo hogaaminayay safiirka Jabuuti u fadhiya dalka Somalia aadan xasan aadan waxaana garoonka diyaaradaha magalada garoowe ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash waxaana xafiiskiisa uu ku qaabilay safiirka Jabuuti ee Somalia danjire aadan xasan aadan iyo wafdiga la socday. inta uu kulanka uu socday ayaa Axmed Karaash iyo safiirka waxa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka iskaashiga Puntland iyo Jabuuti iyo sida dhinacyada ganacsiga maalgashi iyo guud ahaan dhanka horumarka. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ayaa ugu mahadceliyay safiirka Jabuuti u fadhiya Soomaaliya danjire aadan xasan aadan iyo wafdiga la socday kuwaas oo maanta garay magalada garoowe caasimada maamulka Puntland. safiirka Jabuuti u fadhiya Soomaaliya ayaa la filayaa in kulamo kale oo la yeesho qaar kamida madaxda maamulka Puntland maadaama xilligan magalada garoowe iyo guud ahaan Puntland uu ka maqan yahay madaxweynaha maamulkaasi Sayid Cabdullaahi Dali kaas oo ku sugan magalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. kulankan labada mas'uul ku dhaxmaray magalada garoowe ayaa imaanaya xilli dhawaan madaxweynaha maamulka Puntland Sayid Cabdullaahi Dali oo booqasho uu ku tagay magalada Jabuuti caasimada dalkaasi Jabuuti kaasna kulamo oo kula yeeshay dhigiisa dalka Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele. mudooyinkii ugu dambeeyay ayaa Jabuuti waxa ay dhinacyo badan oo Soomaalida waxa ay kulamo ay ku dhaxmarayeen magalada Jabuuti caasimada dalka Jabuuti iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen horumarka labada maamul ama maamulada ka jira dalka iyo dowladda Jabuuti. dowladda Jabuuti ayaa siyaasadda Soomaaliya galaangal ku leh waxaana ay taageertaa dowladda federaalka ee Soomaaliya oo iminka ka jirta gudaha dalka.